Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada wararka xasaasiga ee Deegaanka TV. Waxay ahayd 6 bishan oo ay Kenyaanku dhegta ugu taagayeen khudbad laga dhursugayo madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta loo madalsanaa ama loo ballansanaa inuu kaga hadlo xaaladda guud ee dalka iyo dabcan ay suurtagal tahay khafiifinta tallaabooyinkii dowladda hore ugu qaaday la tacaalidda caabuqa coronavirus. Madaxweynaha ayaa ka dhawaajiyay in lagu kala aragti duwanaaday jihada loo jihaysan doono, iyadoo dadka qaarna ay soo jeediyeen in guud ahaanba xayiraadda la qaado. Wuxuu sidoo kale sheegay in marka runta laga hadlo in ka badan 800,000 oo Kenyaan uu ku dhici lahaa caabuqan haddii dowladdu aysan qaadi lahayn tallaabada lagu xakameynayo caabuqan coronavirus. Madaxweynaha ayaa sheegay in muddo 30 casho lagu daray bandowgii saarnaa dalka, iyadoo uu bilaabanayo inta u dhaxaysa 1 saac ilaa 3 saac ee habeenimo, kuna ekaanayo 4 ilaa 5 aroornimo laga bilaabo 7 Juun bishani. Madaxweynaha ayaa sidoo kale buriyay ama qaaday xayiraadihii dhanka isku socodka ee saarnaa xaafadda Eastleigh ee Nairobi iyo Mombasa Old Town laga bilaabo 4 aroornimo. Arrimahan ayaa sidoo kale ku soo beegmaya iyadoo 126 kiis oo cusub laga diiwaangeliyay dalka oo coronavirus 24 saac ee la soo dhaafay, taasi oo ka dhigaysa 2,600 tirada guud caabuqa coronavirus ee dalka. Haddaba daawada, sidee u aragtaa khudbadda madaxweynaha? Ma yihiin kuwa loo baahnaa arrimaha uu ka shanqariyay? Fikirkaaga saliimka ah inoogu reeb qaybta hoose ee kommentiga. Waxaa halkaasi ku eg qodobka maanta aanu ku eegaynay madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta oo maanta ka hadlayay arrimaha caabuqa coronavirus iyo xaaladda iyo halka uu jihaysan doono dalka. Waxaad kala socoteen arrimahaasi Deegaanka TV. Haddaad ku cusub tahay channelkan, fadlan subscribe, saar, share, comment, gambaleelkana furo. Aad baad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkan waa Deegaanka TV.